السلام عليكم. حلقة waxaynu ku soo qaadan doonaa hadii Ilaahay idmo Dajaal Cawar. waa ayo Dajaal Cawar. Masiix Dajaal waa nin jooga oo jira oo Aadam caruurtiisii kamida. Dajaal Cawar waa magac sifaynaya astaamihiisa oo uu cawaran yahay waana beenaale. ma jiro kitaab dhigaya inta aanu ka warqabno Dajaal magaciisa dhabta ah asalkiisa iyo dembiga uu galay midna, balse aragtida ugu dhowyi waxa ay dhigaysaa markii Fircoon la halaagay kadib Nabi Muuse waxa uu ka maqnaa tulkii 40 maalmood si uu la soo hadlo Ilaahay. intii muddada lagu jiray waxa dhacday masiibo oo nin Saamiri la yiraahdo ayaa dadkii ka ururiyay dahabkii ay ka soo amaanisteen qowmkii Fircoon. Saamiri waxa uu arkay wax aan cid kale arag oo ah faraskii uu Jibriil watay halkii uu qob ka dhigay. waxa uuna ka soo qaatay xantooba ciid ah. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. kadib waxa uu ciidda ku seeriyay dahabkii uu ka ururiyay dadka oo dhalaalayay. waxa uuna ka sameeyay dibi ciyaaya. waxa uuna dadkii u sheegay Saamiri in dibigaasi uu yahay ilaahooda iyo waliba ilaah Nabi Muuse. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. intii ay reer bani Israa'iil caabudayeen dibiga Nabi Haaruun wuu ka reebay balse dhag looma jalaqsiin. waxa uuna doorbiday inuu la sugo Muuse inta uu ka imanayo. هارون وهو جالس مع قومه وبنو إسرائيل موجودون كان فيهم رجل اسمه السامري. هذا السامري رجل فيه خبث وفيه نفاق، تظاهر بالإيمان لكن قلبه لم يكن مؤمنا بالله جل وعلا. هذا الرجل لما رأى جبريل عليه السلام عندما أغرق فرعون رأى فرس جبريل حطت في الأرض فأخذ أثرا من فرس جبريل، أخذه واحتفظ به. فقال الله عز وجل لموسى فإنا قد فتنا قومك من بعدك فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. من؟ السامري يضل قومي عن عبادة الله جل وعلا. فإذا بموسى عليه السلام يغضب، غضب لله جل وعلا، والقوم تركوا عبادة الله للتو، تركهم 40 يوم بس، 40 يوم كفروا بالله ورجعوا إلى عبادة غير الله والأصنام والأوثان. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. markii uu yimiba Nabi Muuse waxa uu bilaabay caro hor leh. waxa uu dhuftay Haaruun waxa uuna tuuray kitaabkii Ilaahay u soo dhiibay. kadib waxa uu aayar u weydiiyay Saamiri waxa ku kalifay falkan.
جاء موسى عليه السلام إلى السامري الذي أضل الناس وجعلهم يعبدون هذا العجل من دون الله، قال له: لما صنعت هذا يا سامري؟ قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. ما الذي رأيت؟ رأيت جبريل، ما رآه أحد، فأخذت قبضت قبضة من أثر الرسول، من أثره قبل أن يغرق فرعون. لما جاء ليغرق فرعون في اليم رأيته، فأخذت شيئا من أثره. الآن اعترف السامري بالجريمة، اعترف بالذنب، والآن سيحكم عليه موسى عليه السلام. قال مركا وحو لنبي موسى: فذهبت أبري فإن لك في الحياة nolosha dhexdeeda waxa ku sugnaaday an taqula ina tiraada Allah misaas taabasha ma jirto yaa la taabanin sidaa uu ballan qaaday baana ku dhacday waa la karantiinay ummadii uu ka dhax baxay dadna waa inaan isagana cidi taaban isna aanu cid taabanin leena qofka wax taabanaya oo qofka bulshada dheehaya ku dhex jira ama cudur baa Ilaahay uu ku riday cudurkaas oo ku keenay in dadka aragooda iyo taabashadoodaba oo alerji ku noqdo oo ka sii dido barxumadaas ku dhacday an taqula la misaas karantiinadaas ku dambeeyay habar rasuul cid uu ku dhacayna ma gafayo وإن لك waxa ku sugnaaday in nabi Muuse ku yiri mawcidan balan lan tukhlafa an laga baajinin ilaahayna waa hor iman doontaa وقت يبال لا كل باب قادنيس على فكاغنا دافمي. قال: اذهب عقوبتك أن تغادرنا، أن تبتعد عنا. المفسرون رحمهم الله قالوا بأن لا مساس أي أنه أصيب بمرض في جلده فأصبح يتأذى الماس والممسوس، وكان يقول للناس لا مساس، لا أحد يمسه. انظروا إلى ظاهر الآية ماذا يقول الله عز وجل؟ قال: فاذهب فإن لك، ليس عليك، ليس ضدك، لك، هي منحة لك، ميزة لك. قال: فاذهب فإن لك أن تقول في الحياة لا مساس، ليست عقوبة بل هذه منحة، بل هذا يعني ليمده الله عز وجل بالطغيان. مساس لا أحد يستطيع أن يماس أو يقترب منك أو يطلع على أمرك أو على خفاياك أو أن يخالطك إلا إذا أنت أردت له ذلك فإن لك. maxay tahay dhacdadan sirta ku duugani maxaase ka dhaxeeya saamiri iyo dajaal sirtu waxay tahay in saamiri laftiisu uu yahay dajaal cadaymihina waa kuwan cadaynta koowaad تلقي الألواح عليك الصلاة والسلام وتأخذ برأس البريء والذين وقعوا بالفتنة يقتلوا ثم تأتي إلى صانع الفتنة تقول له ما خطبك بهذا اللين. نبي موسى عدديسو عد والba way gaadhay saamiri mooyaane waayo موسى عليه الصلاة والسلام مع السامري له جواب واحد فقط، هو أن الله سبحانه وتعالى أخبر موسى عليه الصلاة والسلام بأن هذا الرجل لن تسلط عليه، ليس لك قدرة على هذا الرجل، لن تستطيع أن تؤذي هذا الرجل. عدينت لبعض. الشيء العجيب الآخر أن هذا الرجل السامري رأى غضب موسى ورأى تكسير الألواح ورأى أن موسى يفتك بهارون عليهم الصلاة والسلام، لكن هذه المشاهد لم تجعل هذا الرجل لم تجعل عينه ترف ولا قلبه لا خوف ولا وجل. waayo waxa uu ogaa in aanu Muuse waxba gaarsiin karaynin. cadaynta saddexaad قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. ما الذي رأيت؟ رأيت جبريل، ما رآه أحد، فأخذت قبضت قبضة من أثر الرسول، من أثره قبل أن يغرق فرعون. لما جاء ليغرق فرعون في اليم رأيته، فأخذت شيئا من أثر. من
من في أولاد آدم يستطيع أن يرى الملائكة؟ من؟ فقط الأنبياء. فقط الأنبياء يرون الملائكة. وواحد من أولاد آدم غير الأنبياء يستطيع أن يرى الملائكة. من هو؟ المسيح الدجال. المسيح الدجال عندما يأتي المدينة المنورة عند خروجه، عندما يأتي المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، يجد الملائكة، يرى الملائكة على أنقابها تحرسها. عدينتا أفراد. هذا الرجل عنده قدرات خارقة، عنده أشياء فوق المعطى للبشر. فمثلا هو قال: بصرت بما لم يبصروا به. بماذا بصر؟ ماذا أبصر؟ رأى جبريل عليه الصلاة والسلام عندما نزل ليفلق البحر وينجي الله عز وجل بني إسرائيل، رأى جبريل. sidoo kale waxa uu dahab ka sameeyay dibi jidh leh oo ciyaya. boqorka ay yahuudu sugayaan soo bixidiisa ay adduunka u dhibayaanna waa dajaal oo sidii saamiri uga tagay. waxa ay sugayaan in uu dib ugu soo laabto isaga oo dajaal ah. waddanka Mareykanka ee ay yahuudu maamulaan magaciisa waxa la yiraahdaa US, balse ma aha sida loo inoogu sheegay United States of America. Ewa Uncle Sam. Sam equals family. waxa ay taariikhda geliyeen inuu Uncle Sam ahaa nin noolaa 1812 oo ciidanka Mareykanka hiil iyo hooba la garab taagnaan jiray. balse waa taariikh ay kas iyo ula kac u sameeyeen si ay u majar xabaabiyaan dadweynaha xaqiiqadana ay u asturaan. dhabtuna waxa ay tahay in uu Sam uu yahay Saamiri, Saamirina uu yahay Dajaal, Dajaal iyo Ibliisna ay leeyihiin yool midaysan. muxuu yahay Dajaal؟ رجل يخرج إلى الناس ويدعي أنه رب العالمين، ويؤتيه الله تعالى من القدرات في السحر ما يجعل الناس يفتنون به. أمدي أي أصابح يا ويري وأنا آخر الأنبياء، نبيادي إلهي وصادري أنا أقدم بيه، وأنتم آخر الأمم، أمدهنا إنك أقدم بيه، وهو خارج فيكم لا محالة. نحدين كسر بحدون دور النبي عليه الصلاة والسلام، شكنكم تشرو. هل كي أي كسر بحيا؟ وحو كسر بحيا ماشى الليلة هذا أصبهان. أي كسر بحيا؟ أصبهان شهرستان بالي هذا مانس. ولبا وحافظ ليلة هذا اليهودية، كارتي ليلة هذا اليهودية. أي كسر بحيا؟ صفooyinkiisu maxay yihiin؟ صفات فربضا أي نبي قلت المام عليه الصلاة والسلام si ay dadku sifaadkiisa u bartaan oo uga digtoonaadaan. waxa kamida waa nin haween ma ah, waliba waa nin dhalinyaro buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam, waa shaab, waa nin cas, waa nin gaaban, waa nin tima adag. intan hore bidaar buu ku leeyahay, intan dambana timiisu way badan yihiin oo wuna adagi. waa qoor dheer yahay siduu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. uu yara buuran yahay, ishan midig way masaxan tahayba, tan bidixna biyaha ka tagay oo qolofaysan. wajigiisa waxaa ku qoran كفارة، رواية كلا وحكو قرنت كافي، قف والبغو أخرية، وعقيم مدلو لبدي سقع مضنا وكلا داريهين.
وحاول النبي الدجال أعور العين اليسرى إشم برح وكعورية جفال الشعر بؤتم بدنيه. yaa ugu horeeya ee rumayn doona dadka ugu horeeya raaci doona ee rumayn doona nabigu wuxuu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam inay yihiin 70,000 oo yuhuud ah ayaa ugu horeeya wax raaci doona rumayn doona sallallahu alayhi wasallam yahuud asbahan baraaci sabu nabigu yiri 70,000 oo yahuudi asbahan ayaa raaci soo ilaahay yagiba yimid waxa uu nabigu yiri waxa u baxaya xaqiisa u yaacaya dumar حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته قفك وحو أردي غير كي يسيب الدب أردي كي أتعلى هو يدي قبديسي ولا شيء إددي وحو كعب سنة إنه يعان دمر كي بقى يعيا مركز ساقوري إنتو الدب أقول نقضوح الحرية حركوك ولا حرية سيئنه يعين مخافة أن تخرج إليه ساقو كعب سنة إنه بحان وحرية إنتو قوري كسان نقضوح أيوه الحرية نين الله ننكي الراعة نين الله ننكي أركا وأرضا والراعة يا والرمين يا فتن وسع وحو النبي إنه الشاقي يهود يدد بدن اسكوشير الربادية يدمر فربضن أي حقاس fidnooyinkiisa maxaa ka mid ah نبي محمد با tilmaamayninka wasfigiisa iyo waxa uu yahay waa fitnada ugu daran oo ilaahay koonka uu ku abuuray wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wa sallam إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وحاول النبي فتنة ما سومرين أرض أما أرض كركيك فتنة ما أهانسو مركا لغسو بلا بوقت النبي آدم إلهي أو أبوري إلى قيام الساعة فتنة كدرا فتنة مسيح الدجال سمي النار واحد مودا دبا سocda ruux dadku qof buu diri hadana noolow inuu noolaan qof madaxa ka goyn xagaas fadhigu isku soo celin uu kici qof uu dhiabay hooyada ma ku soo nooleeya markaas hadii soo noolaad u dhiyo shayaadiin iska soo dhigtay baa soo iman abay hooyada meesha taagan hooyo waran aba waran ay gulay soo ilaahaygi mihiib ku dhimay marka la leeyahay dadka inta hadii la arko dadka maxaa hari wadaad fooxla aaba la wada rumaystay niminta sameynay wax ka hari baa dadka iska yaraan ninkaasi waxa la socda raashin baa la socda buur idil raashina ayaa daba socota dadku way gaashoonayaan gaaja lagu salid waxa buurta ka cunaya dadka isaga rumeeyo ma ka cunaya samada ayuu la hadlayaa ninkaas وحول السماء دقيس عركة ودقيسو روب كان عركة روب بضن ثانية قل الله يا وحا أوليه وحا الله وحا الزرع حيثي صوصار مركز خضارتي إيو تقاقي إيو نمعدي صوب حيث وحا الدرس صعدا كنوز الأرض ذهبكي إيا لعقتي إيا خيرك ونبا ضبيا عينك waxaa labadiisa qacmood way kala dheeryihiin mid baa aad u dheer markaasuu badda ku tuuraya kalluunku raadu ka soo qabsanaya u soo saaranaya fitnadiisa waxaa ka mid uu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wassalaam wuxuu imanayaa dad wuxuu leeyahay rumeeya dadka magaalada loo iska dhan ayuu imanaya waxa uu leeyahay rumeeya rabbigiin baan ahay rumeeya way yeelayaan way rumaynayaan waxa uu leeyahay samay roob u keen dhulow tigaadh iyo barwaaqo u noqo arladiiba barwaaqo isku bedelaysa xoolahoogiibaa shirislaan dhulkiibaa barwaaqo caanihiibaa ka badan subagii iyo khayrkiibaa ka badan qaar kaluu imanaya tuulo kaluu imanaya markaasuu leeyahay rumeeya
وإسكدي ليان سمد ربك عشو ليان دولو الزرع عشو أبار إيو وحا هيلي دبات أيام ماشا كو هيلي دكاس وحل وحي حول أي هيستين أوردرنو كدمانيا فتنة دي سوحا كميدا وبيقى أيو الله الليا وحا وليا صو حقيقة صو وبيقى دلو بيا أيو الله حقيقة صو وبيقى حقي صو شبايا استاق بليا واستاق يا وبيقى وحا وليا بيها هلا وايو بيه بالوايا dadku maxay u malayn fidnadaas ilaahay bay u malaynayaan markaas raacayaan laba boorod buu imanaya markaas uu leeyahay islaaya labadii boorod madaxa isku dhifanaya dabayshu u imanaya waxa uu leeyahay dabayle xaggan u soo soco xagga u noqo uu ku ciyaaraya dabaylihii ku ciyaaraya samadii buu amraya biyihii buu amraya wax walba waa fitnad daran buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam nin alla ninkii iimaankiisa uu daciif ahaa horu ka raacaya mu'minkiina wuxuu leeyahay ilaahaygu cawar ma aha kani waa cawar waa kii nebigu nooga digay buu leeyahay sala allah maxaa gogoldhig u ah soo bixitaankiisa ta kale nebigu waxa uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره مسيح الدجال ما صبح يبول النبي إلا مركا أيدتك كتاغان اسكو شيغنتيس مركا اللي اسكو شيغي وايو مسيح الدجال يفتنا ديسا وقت قاسو مسيح الدجال صبح يبول النبي عليه الصلاة والسلام مسيح الدجال انتو صبحين كهر صدح سنة أو درن فدنادو أي درنتها جاتشدو أي درنتها هراتكو الدرية أي أهاندون النبي عليه الصلاة والسلام وحن النبي قال له ويري ما طعام المؤمنين يومئذ مؤمنين ثمال كاسم حي عنيا امتدود محيتها يا رسول الله نبي وحاولي التسبيح والتكبير والتهليل ويتسبح سنيا سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله تاس أو عنتك لما هيستان آخر الزمن كمركو الصوبح مسيح الدجال ومركا اللف أي مسلمين تو أي فرطان ماشا إلى قسطنطينية الكي أي مريا الرد كرسعانية الرد كوريغية ميل والبوتغية فلا يترك بلدا إلا دخله مال مجرت إلا وقلية إلا مكة هي مدينة مويان الرواية كالوحا أهي أفر مسجد أمنا قلي مسجد الحرام أو مكة هي مسجد كالنبي مدينة عليه الصلاة والسلام هي مسجد الطور ماشي إلهي النبي موسى كلها الله هي مسجد الأقصى فلسطين كيان intee ayuu dhulka joogayaa nebigu waxa uu yidhi 40 yawman 40 maalimood ayuu dul joogayaan yawmun ka sana maalin waxay la dhigantaa sanad bay la dhigantaa dhararka wa yawmun ka shahrin maalinna bil bay la dhigantaa wa yawmun ka jumuca maalinna waxay la dhigantaa jumce وسائر أيامه كأيامكم مالمها انت كلا مالمها عادي عيالا دقان تابول النبي عليه الصلاة والسلام منولي هاي دجال ما انت جوابت وحوي ها دجال واتشوغا دونك ونولي هذا بل وقتك النبي نولا أدونك كمدي هاي دتك وحن أدونك تشوغو كمدي لكن inuu soo baxo oo awoodiisu soo baxdo oo fasaad muujisto oo yaani wax way atbaac iyo dad raacsan yeesho oo waa waqtigeeda dambeeya ama joogidiisa wuu joogaa
marka uu waxaas oo fidno ah dhiga yaa dilaya nebi ciise ka daba tegaya meel la yidhaahdo lud oo filistiin ku taala waa u dhowdaa filistiin ayuu kaga daba tegayaa nebi ciise calayhi salaam albaab la yidhaahdo isagona lidun la yidhaahdo ayuu leeyahay nebi ciise ha la fur albaabki baa la furi waxaa daba joogaba waa masiixu dajaal oo yuhuuddii la socoto seefahoodii ayay wataan dharna way xidhan yihiin aada u quruxsan marka uu masiixu dajaal uu arko nebi ciise daaba kamaa yaduubu lmilixu fi lmaa milixdu siday biyaha ugu dhalaasho maarag sidaasoo kale u dhalaali wuxuu isku dayi inuu baxsado nebi ciise dababoodi calayhi salaam markaasaa waxa uu ku leeyahay iga baxsan kari maysid anaa gacanta kugu dilaya waad noolaani ilaa anu aan ku dilayo baabulud ayuu ku gaadhayaa markaasuu nebi ciise ku dhufanaya ninka masiixu dajaal uu dilayaa horuu ka dhimanaya muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya ibliis iyo dajaal waxa mideeya hal yool oo ah luminta aadamaha sidaas awgeed way iskaashadeen wada shaqaynina way ka dhaxaysaa labadooda oo wada jiraana waxa ay u baahdeen dad u shaqeeya oo iyaga caabuda waxa ayna ogaadeen in ay yahuud yihiin dadkaasi